بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walbay joogaan. waxa inoo socda qabayadii taxanaha ahaa ee islaamka iyo muslimnimada aan kaga hadlaynay. waxa gabayga maanta ku bilaabmaya insha Allah sidan: islaamnimada asal leh, axkaam iyo usul leh, adeecid iyo udgoon leh, ammaan iyo hufnaan leh, amni iyo nabad leh, anfac iyo xul leh, iimaan iyo dux leh, umuuro culus iyo istareex leh, asbaab iyo risqi leh, ashqaraar iyo astayn leh, ajiib iyo aqbal leh. islaamnimada asal leh, axkaam iyo usul leh, adeecid iyo udgoon leh. islaamka udub iyo nolol aawan iyo ugbaad iyo iftiin leh, mucjiso iyo layaab leh, alifaad iyo aqoon leh, afkarad iyo aflax leh, cilmi iyo aakhiro iilka iyo waxyaal abaaris ogaal badan leh, istakfirullah iyo toobad naxariis iyo khayr leh. islaamka udgoone rasuul iyo asxaabtii arxamaysay leh. ilaahay diinta saxdee agtiisa taala waa islaamka, adoo dambiile ah filaya ididiilo. waad mahadsantiin dhammaantiin. waxaan leeyahay islaamnimadan isir ilaa isir ku soo caanamaalay yaan la sii dayn. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.